madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo wafdi uu hogaaminayay ayaa gaaray wadanka Shiinaha gaar ahaan caasimadda Beijing halkaas oo kaga qayb galaya shir madaxeedka Afrika iyo Shiinaha shirkan oo muhiimad weyn u leh xiriirka labada dhinac ayaa lagu gorfeyn doonaa iskaashiga dhinacyada horumarinta kaabayaasha dhaqaalaha ganacsiga iyo warshadaha caafimaadka iyo ammaanka inta uu madaxweynaha Soomaaliya ku sugan yahay magaalada caasimadda ah ee Beijing waxa uu shir duceedyo la yeelan doonaa dhigiisa madaxda Afrika halka ka qayb galaya shirka dhanka kale wasiirka amuraha dibadda ee Jamhuuriyadda Djibouti ayaa sheegay in madaxweynaha wadanka Djibouti Ismaaciil Cumar Geelle uu kulan duceed la yeelan doono dhigiisa Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud iyo ra'iisul wasaaraha Itoobiya Ismaaciil Cumar Geelle ayaa halkaas ku soo bandhigi doona qorshe uu kaga qayb qaadan doono sidii loo xalin lahaa khilaafka weyn ee u dhaxeeya Soomaaliya iyo Itoobiya ee ka dhashay heshiiskii ay Ethiopian kula galeen dhigooda maamulka Somaliland waxaa lagu wadaa in heshiiskaasi ay Djibouti ku soo bandhigto qorshe ay ku doonayso in dekad ganacsi ay ku siiso maamulka Itoobiya si uga faa'iideysto loona xaliyo khilaafka todobaadyadii la soo dhaafay khilaafka u dhaxeeya wadamada Itoobiya iyo Soomaaliya ayaa cirka isku shareeray ka gadaal markii ay dawladda Soomaaliya heshiis amni la gashay dalka Masar ciidamada Masaari ayaa ka degay magaalada caasimadda ah 40 sano kadib